faagti arrinta abaaruhu marka amni darro iyo abaaro iyo abaarta qaarkeeda cimiladu keenta la isku daro waa wax adag waxa meesha ku jira marka aan deegaanka ka hadalno waa deegaan ballaaran oo 3 gobol inkastoo qayb kamid ah ay shabaabku gacanta ku hayaan haddana inta kale laftirkeedu kuma eka dadka u soo qaxaya waxay ka imanayaan gobolada kale ee Soomaaliya iyagoo xuduudaha soo beegsanaya haddaad dib ugu noqoto early 90s 91 92 93 ma ahayn colaadda sokay ee xilligaa jirtay waxa weerinaysay abaaraha oo qayb weyn ka qaatay taasa marka waxay keentay dadkii inay u soo gudbaan xuduudka tallaabaan oo xiriir kaamkii qaxootiyada ee Kenya sababta lagu degay saasay abaartaasi marka waxay keentay dadkii marka xoolihii ka dhamaadeen noloshoodii way isbedeshay xiriir qaxooti ay galeen noloshii xoolo raaca way ka tageen nolol magaalay galeen iskuulle ilmihii waxbarashay galeen waa tan weli aan ka hadlayno Chinese-ka iyo dadka sidii loo soo celin lahaa iyo noloshii loo abuuri lahaa culays taagan bay ahayd iyadoo aan maanta ka fakarayna marka dadkii qaxootiga ka soo noqday Chinese-ka ah nolol joogto ah see loogu abuuraa yaa waxaa maanta yimid abaar kale intay dhacday xoolihii inay ka dhamaadeen مثلا gobolkan oo kale looda ugu badan looda waxaa la oran karaa 80% way baabaaday dadkii marka qaxooti Kenya la aadayana malaha kii hore la saaraya noloshiina way adkaatay xoolihiina way ka dhamaadeen way adag tahay marka qaabka nolosha oo dhan sidii loo maareyn lahaa iyaga intii hadda xooluhu u soo hadhay biyaha waa la dhaamin karaa laakiin cawskii yaan jirin sababtoo markii abaaruhu isku xigaan waxaa dhamaanaya daaqii ma jirayo daaqo hadduuna jirin xoolihii biyuhu waxa uma tarayaan haddii xataa booyado loogu geeyo waxaan maanta markaa culays lagu haya iyadoo qaxootigii hore soo noqday culays ay yihiin oo iyaga iyo dadkay u yimaadeen waxba dhaamin iyo culayskii uu jiro abaartana dhacday waxaa ku soo kordhay markaa dadkii dad badan oo Kenya iyo qaxooti la aadan loo waayay ay noqotay inay magaalada soo kordhayaan dhinacaan hadda luglo ilaa 5,000 oo qoys in ka badan baa hadda joogta oo noloshooda ay eber tahay biyana ayna jirin nolol kalena ayna jirin waxa maanta ugu daran ay tahay bal dadkaas hadda in la badbaadiyo mustaqbalkana in laga fikiro waxa kale loo weerarso gobolkii Gedo oo meelaha abaarta saameynta ugu badan ay ku leedahay in siyaasad xumida ka dhaxaysa dawladda Soomaaliyeed iyo state-ka hay'adaha khilaafka abuuray ay sababtay inaan maanta xal gaarsiin kareynin wixii loo hayay doonarskiina mas'uuliyadda cid qaada ay jireen sababta culayskiina uu lagu soo dhacay dadkii maamul ahaanna wixii gacanteeda kuma jiro siyaasadii wax qasaysa laba xaaladood baa maanta noogu culus oo aan u baahanahay inaan hadda ka fikirno mid waa waxa maanta taagan iyo dadku kaalmada degdeg ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in hooy la siiyo wixii loo heli karo waxay u baahan yihiin in raashin loo helo waxay u baahan yihiin in biyo loo helo waxay u baahan yihiin caafimaad iyo loo helo waxbarasho wixii hadda degdeg laga gaaro ama ha noqoto kuwii hore qaxootiga uga soo noqday ama kuwa hadda xooluhu ka dhamaadeen waxayna tahay in loo helo nolol rasmi ah ama ha noqoto xoolo in loo beero in la siiyo oo lagu mashaariic beero loo sameeyo sababta wabigii ugu dheeraa baan haysanaa ama ha noqoto in kalluumaysi la baro oo ay noqonayso xeebta ugu dheer kalluumaysiga in waliba uu potential yahay laga heli karay dadkaas dhalinyarada ah haddii maanta noloshooda la maareyn waayo gacan argagixiso iyo dadan ehel u ahayn bay ku dhacayaan gacantooda maanta Jubbaland dadka assetka u ah ama human resource-ka ay leeyihiin waa dadkii shalay qaxootiyada galay Kenya wax ku soo bartay soo noqday iyaga shaqaalaha maanta ugu badan ka ah haddii markaa dadka wax la baro la dejiyo noloshooda la sugo waxaan helaynaa wax ka badan oo waxa aan u baahanahay marka waa inaan wixii hadda aan u baahanahay iyadoo ku-xigeenka iyo wasiirkii ay jawaan ku dhex jireen la helo oo wixii laga qaban kara la qabo anagana ay culays lagu tagaan qaadi karayn tan mustaqbalkana aan ka fakaro anagoo xusuusanayna dadkii daadayadii joogay abaartii 74 Soomaaliya gobolada waqooyi ku dhacday dadkoodii dadka maanta beero dhaqatada iyo aqoontaba ugu horeeyay noqdeen marka waa wax dadka looga faa'iideyn karayo muhiimadda ugu weyn waxay tahay dadka maanta u baahan yihiin wax degdeg ah process dheer oo la galo iyo waqti dheer oo laga sugaayay waxa laga yaabaa inuu nolosha u saamaxaynin dad badan inay maanta ku gaaraan laakiin waxaan idinka mahadcelinaynaa culayskaas ka saarteen annaguna diyaar baan u nahay inaan waxaan qaban kara qaban laakiin waxaan u baahannahay wixii la qaban karay in la dedejiyo culayska ugu badanna hadda degdeg waxa loo qabanaya mustaqbalka labadaba aan aragtideena yeelan